السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحيران channel كان الصومالي يونيفيرس كسو دواada marka layo barnaamijkeeni arrimaha bulshada. asbuucan barnaamijkeenu waxaan kusoo qaadan doonaa dhaqamada iyo caadooyinka la yaabka leh ee ka jira dunida. balse inta aanu gudgalin ka hor barnaamijkeena haddii midaan ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee channelka fadlan ha iloowin inaad subscribe saarto aadna rukumato bilka notificationka si ay kusoo gaaraan fiidiyoodii ugu dambeeyay aan soo upload gareyno. mahadsanid. in la iska jaro qaar ka mid ah faraha. dalka Indonesia waxaa laga yaqaanaa caado la yaab leh taas oo ah in faraha la iska jaro. runtii waa dhaqan aad u xanuun badan. naagaha ayaa lagu qasbaa in ay jaraan qaar ka mid ah farahooda markii uu dhinto qof ka mid ah qoyska, taas oo lagu gol leeyahay in lala dareemo meydka caadifadiisa. in la jajabiyo wixii maacuun guriga yaala waa caado ay isticmaalaan dadka reer Jarmali ah. qaar ka mid ah labada reer ee isguursanaya iyo asxaabtooda ayaa imanaya iyaga oo jajabinaya wax kasta oo yaala guriga caruuska iyo caruusada ayaa ku qasban in ay ururiyaan alaabtaasi, taas oo lagu gol leeyahay in ay xusuus u noqoto bilowga guurkooda. cabidda mooska iyo lafaha qofka dhintay oo la isku shiiday waa caado ay leeyihiin dadka ku nool duurka Amazon inta u dhaxaysa Venezuela iyo Brazil. markii uu qofka geeriyoodo ayaa jirkiisa la siiyaa xasharaadka si ay u soo reebaan lafaha. markii ay ka soo wareegato 45 maalmood ayaa la soo qaadaya lafaha meydka oo lagu shiidayaa moos. dadka hortooda ayaa lagu cabayaa, taas oo ay aaminsan yihiin in qofkaasi dhintay uu gali doono jannada. in caruuska iyo caruusada laga mamnuuco in ay galaan suuliga waa caado ay leeyihiin dadka Maleeshiyaanka ah, qaasatan gobolka Yarinyo ee waqooyiga Malaysia. caruuska iyo caruusada waxaa ka mamnuuc ah in ay galaan suuliga muddo 3 maalin ka hor caruuskooda, waxaana loo diyaariyaa dad ilaaliya kuwaasoo ka warqaba in aysan gelin suuliga ilaa laga gaaro muddada arooskooda, taas oo ay aaminsan yihiin in caruuska iyo caruusada uu cimrigooda ku dheeraanayo. in caruuska uu ximbaaro caruusadiisa dhaqankan oo laga yaqaano dalka Shiinaha ayaa qofka caruuska ah waxaa lagu qasbayaa inuu ximbaaro caruusadiisa oona ula dhex socdo jaay kulul, taas oo ay aaminsan yihiin in noloshoodu ay noqonayso mid guuleysata. inta badan waxaan maqalnaa cibaadooyinka cajiibka ah ee ay sameeyaan bani aadamka. tusaale ahaan dalka Hindiya waxaa laga caabudaa lo'da, sidaas oo kale dalka Japan ayaa iyagana caabuda yeeyada iyaga oo aaminsan in ay yihiin ilaahyo. yeeyada ayay gowracaan kadibna dhiiggiisa ayay cabaan si loogu barakaysto. xaflad weyn oo loo qabto daanyeerada dalka Thailand. sanad kasta dalka Thailand waxaa laga qabtaa xaflad aad u weyn oo si heer sare ah loo soo agaasimay, taas oo loo qabto daanyeerada. waxaana la keenaa wax ku dhow 3 tan oo fawaakih iyo qudaar ah oo ay jecel yihiin daanyeerada, iyaga oo ay aaminsan yihiin in ay farxad u sameynayaan daanyeerada. la noolaanshaha meydadka. Indonesia waxaa ka jira caadooyin iyo dhaqamo aan qofna maleysan karin. gobolka Aceh waxa ay leeyihiin caado ah in qofka uu la noolaado meydka qaraabadiisa muddo bilooyin ah inta aan la aasin ka hor jirkiisa. waa caado aad iyo aad la yaab leh, taas oo ay ku muujinayso in dadka bini aadamka qaarkii ayna lahayn maskax ay ku xisaabtamaan ayna ku fikiraan oo Ilaahay siiyay. helidda barakada guurka. dalka Brazil waxaa ka jira dhaqan ah in gabadha la guursanayo ay soo barakeysato ayna soo taabato qowraha xayawaanka, taas oo ay moodaan inay ilaahoodii u doorayo nin ayada daneynaya.